wasiiru dowlaha nabadaynta gobolada bari ee Soomaaliland Cabdirashiid Xuseen Cabdulla Gargaar oo maanta waraysi gaar ah siinay TV-ga caalamiga Bulsha TV ayaa waxa uu markii ugu horeysay uu jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeedhay wasiirka hore wasaaradda biyaha Soomaaliland Baashe Cali Jaamac oo sheegaya in aanay waqti xaadirkan ayna munaasib ku ahayn wada hadallada Soomaaliland iyo khaatuma dhaxeeya Cabdirashiid Xuseen Cabdulla Gargaar oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu leeyahay wasiirka hore biyaha oo nin oday ah mudan oo wax garad ah oo ka soo jeeda gobolka oo waliba ragga ugu firfircoon maaragtay deegaankaas marka horta waajib ma hayo waqtigeedii ma taasi u malayn maayo inay macquul tahay wala waana wasiirka hadalkiisa maqal laakiin waqti ay ka macquulsan tahay garan maayo in la ururiyo dalkan iyo dadkan cidii wax tabanaysa ama qaatamaha ama cid kale haatay waa xukuumadda waajibaad saaran kuwa hore badan baa laga howl galay oo ku sidii galbeedka oo kale boorama waxyaalihi ka jiray tabashada ahaa taasina waa la mid khaatuma iyo hawsheedu dalkan iyo dadkan madaxweynahanina go'aan buu ku gaaray legacy-giisa iyo dhaxalkiisa inay ka mid noqoto isagoo wax badan ka tagaya dalkan iyo dadkan oo midaysan cidana wax taban insha Allah taala inuu xukunka ka digo waa go'aan taasaanu ku taageerina kula shaqeynaa waa waajibaad qaran oo saaran waan maqlay maalmahan rag siyaalo kala duwan uga turjumaya oo qaar taageeraya qaar soo dhaw arrintu sidaa maaha horta waxaan leeyahay odayaasha aad magacawday iyo kuwa kale ka horeeyayba annaga haddaanu nahay madaxda gobolka soo jeeda waxaan saaran waajibaad qaran waajibaadkana saaran waxa weeye hadayba xukuumaddiisu taagto madaxweynuhu go'aamiyay in dadkan la ururiyo wixii turxaan ay ku jira laga dhex saaro qaatuma inaanu soo dhaweyno hareeraha qabanno mooye ma lahayn horta ka hadal sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda nabadaynta gobolada bari ee Soomaaliland waxa uu faahfaahin ka bixiyay socdaal uu dhawaan ku tagay gobolada bari ee Soomaaliland 16 maalmood aan ku maqnaa gobolka toosinta maamulka iyo baraarujinta gobolka maamulkiisa iyo wixii lala qaban karo marba cidda dawladda dhexe golaha wasiirada tagaysa hawshaas waa hawl iska waajiba runtii wax fara badan waanu dardargelinta maamulku waa wax waajib iska joogtaa arinta kale muhiimkeedu waxay ahayd colaadan labada reer oo dawladda la walwal badan ku haysay xukuumadda madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba in badan oo horena laga hawl galay ha noqoto abaaraha iyo mashquul kale yimi iyo dardargelin way u baahnayd hadeerto inaanu dardargelino waqtigii ku haboonaa bay ahayd dabcan waa laba reer oo horta colaadu wada dhashay oo meesha wada degan dadkaas oo kalena mar haday colaade dhex gasho way daba dheeraataay oo waxay leedahay raagisteeda iyo maartay waayaheeda laakiin sidii ugu badnayd muddo dheer oo adigu ilaa 9 maalmood ah shirista joogo labada beelood iyo guddi culimo ah iyo xirbeegti dhaqan oo ku dhex jirta aanu wadnay maalintii arbacada ayaan shirka ugu dambeeyay isugu nimi shirbeey uu balaaran oo wax garadka gobolka la goobjoog ka ahaa guddi 11 oo niman culimo oo 8 iyo 3 oday oo xirbeegtiye iyo mashaayikhdi ugu waaweyneed gobolka aan isleeyahay xaq dhaqan iyo xaq aqoon diineed iyo mid maadiba dadkii ugu madnaa dadkaas baan hadda gacanta ku haya hadii loo baahdana dawladda iyo iyaguba cidii kale u baahan arrintaas waa arrin culays badan nagu haysa dabcan taladeeda leedahay waan ku kordhinaynaa loo goobjoog baan u wada ahayn madaxda sare ciidanka militariga hadiyo gor amniga sare gacanta ku haysa oo mar walba kala dhaxgalka labadan beeloodna ilaa hadda ku dhex jira ilaa maalintii bilaabatay meel kasta qof ama wax loogu sheegay ciidan baan u geeyinay ka hawlgalka dawladdu ilaa maalinta isma taagin mesela gobolka oo kale xoojin baan ku sameyn had iyo gor ciidan ku buda jooga cid kale looga baqayana ma jirto waa amniga saanu gobolka maaragtay saameyn ugu yeelan coladaha beelaho had iyo gor wasaaradda dakhliga iyo booliska iyo jaranka iyo aad bay ugu hawleeyeen xagga magaalada dibadeeda ka militariga jooga meel aan guuto la geeynin ma jirto dharkeen geeyo dabataag dhumay kala bayd inta u dhaxaysa meelan ciidankaasi joogin oo meeshii wax lagu sheegay in ka hawlgelin ma jirto sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda nabadaynta gobolada bari ee Soomaaliland Cabdirashiid Xuseen Cabdulla Gargaar oo wax ka weydiinay heshiiskii dhawaan lagu soo galay deegaanada Orbogeys iyo Dharkingeeyo ayaa waxa uu yiri wax badan baa ka dhaqan galay waxna way ka dhibay wax badan baa ka dhaqan galay waxna way dhiman yihiin wixii dhaqan galayna hal la eego hal la xuso waxa dhimanna si xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan guud ahaan deegaanka oo dhan gaar ahaan dadkii shirarkan lala galay ونجيب عبد الله على تلفزيون عالمي Bulsha TV magaalada Hargeysa.